ku dhawaad hal sano iyo bar ayay xiran tahay xaruntii caafimaadka deegaanka Wargalo ee bariga gobolka Mudug kadib markii uu mashruuci caafimaadi ka dhamaaday hay'adii samafal ee gacanta ku haysay xaruntaasi deegaanada bariga gobolka Mudug oo caafimaad ahaan hooseeyay ayaa arrintaani la soo daristay deegaanka Wargalo waxaana odayaasha iyo waxgaradka deegaanku ay sheegeen in baahiyo kala duwan ay ka jiraan deegaanka taas oo ay ugu weyn tahay caafimaadka biyaha iyo gaabis ka jira dhanka waxbarashada deegaanka dadka xanuunsan iyo hooyooyinka ay la soo gudboonaadaan xaaladaha gaarka ah ayaa caafimaad ahaan loogu qaadaa gaalkacyo Wargalo u jirta in ka badan 60 kiiloomitir waxaan ka hadlaynaa Wargalo isbitaal bay lahaan jirdhay isbitaalkii ay lahaan jirdhay hay'ad baa fangaray jirtay hay'adii way ka guurtay aad baa meeshaas dhibaato culus uga soo gaartay deegaanka ayadoo hadii alla idmo ama dadkii jirhanaa ama bahalkii la oran jiray haweenka umulhayay dadkii jaba dadka aad u durufaysan meeshaas dhibaato baa naga soo daristay waxaan rabnaa in la ka caawiyo oo meeshaas dhibaatadana la ka caawiyo hal sano iyo 3 bilood uu naga xiran yahay intii ka horeysana dhowr sano noo shaqeynayay halkaas sana iyo 3 bilood buu naga xiran yahay sababta keentana waxa weeyaan hay'ad baa noo horeeyay dhaqaale ka bixi jirtay noo fangaray jirtay kontraktii baa ka go'ay hay'adii baa naga guurtay sidaas uu ku xiran yahay tabar anagu aan leenahay aan ku furanana waan weyn meeshaan waxa ka jira labada carqaladood oo isbitaalka ay tahay isbitaalka oo ahaa dadweynihii meesha ku dhaqnaa inay meesha daawalaan ugu laadaan ilmihii haday naag umada tahay hadii mid sideedaba hadii laan maayo far ay tahay meeshaas dhibaato weyn baa ka haysa degmada waxaan codsanaynaa in maaragtay si degdeg ah nala ku soo caawiyo dhinaca isbitaalka kaleete waxyaabo badan bay kaga baahan tahay oo baahiyo badan gaar ah ka sii jira hadda isbitaalka hadii la fiirsho muddo hal sano iyo xogaaya u xiran yahay waxa dhacday halkaas sano iyo xogaaga gabadha halkan ku foolata hadii gaalkacyo isbitaal ugu soo gaalkacyo hadii loo qaadana dhibaato badan bay kala soo kulmaysaa qaar dhax bay isaga dhalhayaan qaar hadii rabaan isaga dhimanayaan qaar waxa weeye xaalad adduun bay la kulmayaan tiro badan deegaanka oo biyaha ka heli jiray ceel riiga ayay odayaasha deegaanku sheegeen in cilad haysata awgeed uusan kaafin karin deegaanka iyadoo lagu guda jiro xilli roobaadka matoor baa laga cabi jiray ceelku waa biyo ceel malisaasa matoorkii laga cabi jiray asaguna sidoo kaleete oo hadii ilaahay maayo naga halaysan yahay waana u tan iyo tabar weynay inaan suubsano anagu waxaan rabnaa asagaasna in hadii ilaahay maayo kaalmana la kaga galo adduun weynaha ama warbaahinta waxaan ku darsanaynaa in meeshaasna la ka caawiyo oo waxna la kaga qabto matoorkii bam waa ula anahay hadii ilaahay maayo solar uu lahaa solarkii waa naga halaysan yahay waxaan doonaynaa in hadii ilaahay meeshaasna la ka kaalmeeyo la ka caawiyo intaas baan codsanaynaa solar baan ku cabi jirnay intii waayahan ahayd solarka dabkiisii baa xumaaday oo dhacay bumbadii waa xamil waayay bumbadii waa naga gubatay solarkiina waa naga halaabay waxaan rabnaa ayadaasna in gacan loo fidiyo waxbarashada deegaanka waa mid kale ah ee ka shaqeysa arrimaha bulshada aasaasiga oo ah hase ahaatee gaabis ayaa ka jira qudheeda sida uu noo sheegay Cabdiweli Axmed Faarax Bayr oo kamid ah dhalinyarada deegaanka dhinaca iskuulka waxa weeye aad iyo aad waxbarashadiisa oo hooseysa deegaanana la mid ka dhinaca xagga naga jiray kuwa xagga naga jira la mid maahin waxa weeyaan waxa way aad iyo aad uga hooseynaa wasaaradda ku shaqulka iskuulka waxbarashada waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa inay naga soo caawiyaan dhinaca macallimiinta kaleete dhinaca hadii la koro manhajyada kaleete waxay ay ka dhigan tahay dadka deegaanka ayagoo hadii ay hoggaan helaan ayagoo wax iska haleynayaan dadka deegaanka dhinaca wasaaradda xaggeeda ka farartaa dadka deegaanka hadii wixii hadii meesha haday leecsan tahay hadii wax weeye meesha leecsan qofkii haduu awalna waxa uu aqoon oo waxbarashadiisa ay haleysnayd oo meel ka gaarsiisanayn waxa imaanaysa inuu qofkii si fiican ugu sii dhiiran wixii ay saadaysa wasaaradda dhinaca ka soo marka dhinaca wasaaradda
ilaa ardadaas 100 arday way dhammayd inkastoo deegaanka si tabartiis yahay loo soconaya 100 arday way dhammayd ardadaas wax ka qalin jabiyay hadda jaamacada dhigtay magaalkacay jaamacada ka dhigtay wax aragta jaamacada ka galay way jiraan ka qalin jabiyay laakiin marka waxbarashadiisa waa isku toosnayd xilligii waxa weeye maamulka galmudug la miday ay ahayd waxbarashadiisa aad isku toosnayd laakiin wixii ka dambeeyay sanadii ka dambeeyay maamulkii waxa weeye hadirtaan soo cusbanaanaya marka waxaan ka codsanaynaa in aad iyo aadna la kaga soo caawiyo Saadaq Siciid Nuur Galmudug TV gaalkacyo